kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka aan idin hayna maanta dawladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday howlgal militari oo xoog leh iyadoo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Oduwaa Yuusuf Raagana oo booqday qaybaha hubka keedka Soomaaliya diyaaradaha dagaalka halka ay ku xareysan yihiin iyo sidoo kale gaadiidka gaashaaman ee dawladda hub cusub oo dheeraad ah ayay dawladda Soomaaliya keensatay wararkaas ayaa eegi doona iyo dhacdooyin kale oo murugo ah oo gobolka Shabeellada Dhexe laga soo warinayo haddii aad nagu cusubtaa nagu soo bir oo kamid noqo saaxiibada nagu xiran bartan YouTube-ka saaxiibka la ah si uu helo wararka Soomaaliya taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Oduwaa Yuusuf Raagi ayaa maanta markii ugu horeysay waxa uu kormeer iyo booqasho ku tagay isaga oo la wareegay hub cusub oo ay Soomaaliya soo iibsatay taasoo laga keenay dalka dibadiisa halka uu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya tagay waxa ku jira halka ay ku kaydsan yihiin hubka casriga ah ee Soomaaliya keensatay gaadiidka gaashaaman ee dawladdu ay la timid iyo sidoo kale waxa kale oo yaala diyaaradaha dagaalka oo ay dawladda Soomaaliya dhowrkii bilood ee la soo dhaafay iyo sanadahanba ay soo iibsanaysay taliyaha xoogga dalka Soomaaliya ayaa mid wuxuu u dul istaagay hubka iyo gaadiidka gaashaaman oo ay dawladda Soomaaliya maanta uu keensatay waxaana sheegay in dawladdu ay markan gali doonto dagaalka madambeesa oo lagu soo afjari doono kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale mid lagu sugayo amniga qaranka si hadalka u dhigay taliyaha goobahan aad arkaysaan oo taliyaha xoogga dalka Soomaaliya kormeerka ku tagay waxa yaala diyaarado 10 gaaraya ama ku dhowba oo ay xoogga dalka Soomaaliyeed leeyihiin wasaaradda gaashaandhigga laga maamulayo sidoo kale waxa yaala gaadiid dagaal oo aan hore Soomaaliya u ooli jirin ama ciidanku haysan jirin kuwaas oo Soomaaliya qaar ay soo iibsatay qaarna yabo ama taageero ay ku siiyeen wadamada saaxiibada la waxa kale oo yaala noocyo kamid ah hubka culus oo ay dawladda Soomaaliya markii ugu horeysay tan iyo markii cunaqabateynta laga qaaday dhowr jeer ay soo iibsatay kuwii ugu dambeeyana hadda ayaa la keenay taliyaha militariga waxa uu sheegay in markan Soomaaliya ay cagta saartay dhabihii guush iyo dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan ee xoogga dalka oo ilaaliya amniga xuduudaha dalka Soomaaliya goobta ay hubkan iyo keedka yaalaan sidoo kale waxa ku sugnaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa wax ku soo bartay si gaar ah waxa ay yaqaanaan qaabka wadista diyaaradaha duqeymaha iyo sidoo kale inay wax ka barteen ciladaha dabka iyo farsamooyinka diyaaradaha taliyaha xoogga dalka Soomaaliya General Oduwaa Yuusuf Raagi waxa uu dhalinyaradan iyo ciidamada Soomaaliyeed dhamaantoodba u sheegay in dalka Soomaaliya oo 34 sano burbur ku jiray dawladda hadda inay joogto meel wanaagsan dalkana oo ku tashanaya dhalinyarada loona baahan yahay inay u qalab qaataan badbaadinta Soomaaliya warkiisa waxa ku jiray in uu bilaaban doono dagaalkii ka dhanka kooxda Al-Shabaab dhawaana ciidamadu ay dhaqaaqi doonaan waxa kale oo taliyaha uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay kaliya la dagaalami doona Al-Shabaab laakiin ay la dagaalami doonto qof kasta oo amniga qaranka dhibaato ku ah midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeedna la dagaalamaya ama dhibaato ku ah cadawga gudaha iyo kan dibadda ayuu sidoo kale sheegay General Oduwaa in xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guudaan ciidamada qalabka sida looga baahan yahay in ay ka ilaaliyaan bulshada Soomaaliyeed dalkan ay ilaaliyaan arinta waxay ku soo aadantay iyadoo Soomaaliya ee dagaal baan ku jirto kooxda Al-Shabaab oo weligeedba dagaalkaas oo taagnaa ama 10kii sano ee la soo dhaafay ka badan bay dagaalamayeen sidoo kale wuxuu ku soo aaday iyadoo dawladda Soomaaliya hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaax Madoobe ku eedeysay inuu xogaha qaranka u gudbinayo dawladda shisheeye iyo inuu qaranka dhibaato ku yahay ama uu ku xad gudbay shuruucda dalka Soomaaliya u tiilay ee dastuurka federaalka iyo kan dawlad goboleedka iyo dhammaan heshiisyada kale oo gobjoog u ah Oduwaana waxa uu kamid yahay saraakiisha cusub ee loo baahday ee dib loo howlgeliyo taliyaha militariga Soomaaliya ayuu ahaa kii ugu muddada dheeraatan iyo burburkii kadib uguna da'da yaraa mar kale ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay inuu xoogga dalka Soomaaliya hogaamiyo dhinaca kale golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ka soo saareen qodobo muhiim ah ayaga oo ka dooday xaaladda wadanka Soomaaliya qoraal lagu daabacay bogga xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa lagu yiri sidan December oo 5 maanta 2024 shirka golaha wasiirada waxa gudoomiyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxaana lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo la xiriira amniga qorshaha isbedelka qaranka iyo heerka ay marayso canshuurta iibka oo tan iyo muddadii la bilaabay sameysay sare u kac balaaran oo miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ah ayaa lagu yiri qoraalka golaha wasiirada soo kale golaha wasiirada Soomaaliya qoraalka ka soo baxay waxa lagu yiri goluhu ayaa warbixin la xiriirta ciidanka qaranka ee la geeyay deegaanka Raaskabooni ee Jubbaland waxa uu ka dhageystay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo tilmaamtay in ujeedka ciidanka loo geeyay ay tahay sidii
ay ula wareegi lahaayeen amniga deegaanadaas oo ay ka baxayaan ciidanka ATMIS ee ka socda wadanka Kenya qaybtana ka ah howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya si ay u xaqiijiyaan amniga goobahaas ayaa lagu yiri qoraalkan sidoo kale golaha wasiirada warka ka soo baxay waxa lagu yiri wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha ayaa golaha warbixin ka siisay halka uu marayo qorshaha isbedelka qaranka ee loo yaqaano NTP 2025 ayuu socon doonaa muddadaas oo diyaarintiisu ay socotay muddo sanad ku dhow haddana maraysa heer gabagaba ah kaas oo dhaqan gali doona sanadka cusub ee 2025 oo ay ka dhiman tahay maalmoon isla markaana waxa uu bedeli doonaa horumarinta qaranka kii loo oran jiray ama nidaamkii loo oran jiray ee loo yaqaanay NDP-9 ama NDP-9 shirkaas ama qodobaas ayaa ka soo baxay shirkii golaha wasiirada Soomaaliya ee maanta ku soo gabagaboway Muqdisho waana shirkii toddobaadlaha oo ay goluhu yeeshaan khamiis kasta waxa uu shirkan dhacay iyadoo xalay ilaa maanta galinkii hore aad loo hadlayay inay go'aano ka soo bixi doonaan shirka golaha wasiirada oo isbedel waaweyn ay dhici doonaan oo mas'uuliyiin sare oo dawladda ka tirsan xeerka laga qaadi doono laakiin ma dhicin wax tallaabooyin xilka qaadis ah oo ay dawladdu sameysay gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxtooyada Soomaaliya laakiin aad ayuu xoogayaan warkaasi saacadii la soo dhaafay warbaahinta ayuu ku jiray inkastoo war sugan oo san ahayn oo xafiisyada sare ee dawladdu ay sheegeen inaysan jirin wax qorshe ah hadda dawladda u yaala oo isbedel ah haddana guux weyn ayaa ka dhex jira gudaha hay'adda dawladda Soomaaliya waa hay'adaha dawladda Soomaaliya waxa arintaas saameyn ku yeelan kartaa mustaqbalka dadka hadda dawladda ku jira ee shaqeynaya hadii maalin kasta ay la soo kacayaan warbixino saameyn kara qalbigooda iyo emotionka ama dareenkooda oo shaqooyinkooda dhaac u geysan kara in xilka laga qaadi doono laakiin waa caada Soomaaliya muddo dheer ka soo jirta arintan markana shabeellada dhexe Hirshabeelle dagaal culus oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka dhacay maanta duhurkii ilaa barqadii maanta deegaano ka tirsan degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana dagaalkan daba jooga colaad in muddo ka taagnaa deegaankaas ilaa hadda si rasmi ah looma oga dhimashadii dhaawac intay gaarsiisanta laakiin dhinacyadu waxay sheegayaan midba inuu dhinaca kale ka dilay ilaa dhowr qof oo gaaraya ugu yaraan 4 qof wali ma jiro wax war ah ka soo baxay ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya isugu jira ciidanka daraawiishta booliiska nabad sugidda ee halkaas ku sugan iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle Cadalle deegaana ka tirsan dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen deegaano oo dhiig badan ku daadanaya kolba waxa ku dagaalamaya qabaa'ilo kala duwan colaadan maanta dhacday ama dagaalka maanta jira waxa ka horeeyay dhowr maalmood ka hor dagaal halkaas ka dhacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 7 qof kaliya Cadalle laguma dagaalamayo sidoo kale Hirshabeelle waxay ka jiraan deegaano kale gobolkaas ka tirsan colaado si gaar ah waxa lagu dagaalamayaa inkastoo maanta xaaladdu ay degan tahay soodinta ay wadaagaan labada gobol ee Hirshabeelle ka kooban tahay ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe dagaaladaas oo ayagana dad badan lagu dilay toddobaadkan kuba kana lagu dhaawacay kan maanta ee kaas kalaba dhamaantood wuxuu dhaxaya dad ehela oo wadaag ah xigta ah sidoo kalena qaraabo aad isugu dhow ah dhamaantoodna waxay isku haystaan daaqsin iyo deegaan intuba dagaalka maanta dhacay ayaa ugu daran wiligiis ayuu soo jiray kaliya in dagaalamaan dhinacyadu inay dagaalamaan kaliya ma sameeyaan ee sidoo kale waxay qaaraan weeraro shufta ah ama weeraro oo habeen dheelmad ah oo lagu qaadayo guriyada shacab ay degan yihiin oo lagu dila caruur iyo dumar iyo waayeelo midna lama dhaafo wali ma jiro wax war oo ka soo baxay dhinaca maamulka Hirshabeelle sidoo kale ma jiro tallaabooyin maamulkaas oo qaaday dawladda Soomaaliya ma qaadin wax tallaabo oo arintaas ku aadan dhamaana colaad ayaa ka jira deegaano badan oo dhaca gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya inkastoo maalin kasta dagaal jirin haddana sanadkii ugu yaraan 3 ilaa 4 jeer ka badan ay qabaa'iladu dagaalamaan Galmudug iyo Hirshabeelle kan maanta dhacayna wuxuu ka mid yahay dagaalo in muddo soo laalaabtay oo deegaanada Soomaaliya ka jira gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug labadaas maamul goboleedna kuma guuleysan inay dhameeyaan colaadda dadka ehelka u dhaxaysa dagaalka maanta waqti kulul ayuu dhacay dhimashadii dhaawacana dadkaasi marka kuwa dhinta laga soo tago kuwa dhaawacyada way adagtahay inay helaan gargaar caafimaad meesha ugu dhow oo ay ku heli karaan isbitaallo waaweyn oo dhaawacyada culus la tacaali karana waa Muqdisho halka kuwa kale ee degmooyinka qaar ku yaalana ay adagtahay dhinacyadu inay isu gudbaan